ardada dhigata dugsiga sare ee magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag oo maanta munaasabad si weyn loo soo agaasimay ku qabtay xarunta dugsiga sare ee magaalada Xingalool ayaa ku soo bandhigay waxqabad kala duwan oo ay ka muujiyeen dugsiga sare ee magaalada Xingalool waxaana ka soo qayb galay munaasabadan mas'uuliyiinta heer degmo heer gobol qaar ka mid ah ururada bulshada ardada wax ka dhigata dugsiga sare iyo barayaal waa kuwan qaar ka mid ah ardadii soo agaasimay munaasabadan oo hadal ka jeediyay hadeer iskuul ayuu ekaaday waa la cadeeyay sidoo kale xafiiska waxa lagu sameeyay dib u habayn gudida waxay waday waxqabad iyo hawlo badan waxay qabatay ugu horeeyay waxqabadkeedii haddaan idin taataab qorto galaas kasta oo rahayo galaas kasta magaciisa iskuulka waxa lagu qorto qoraalada halka ka muuqda haddii aan talabaad ka xojiyo waxay qabatay labaad waxa ahaa ugu weynaa xafiiskiina inoo hagaajiso wax badan ka bedesho la bareer amal alaab inuu ku gorano buugtana inoo sameeyso tii dambeysay oo ugu badneed oo nooguna hawsha badneed nooguna adkeedna waanu ka saxan weynana waxa idin iskuulka aad aragtaan oo aynu inta jeelka u ekaan iskuulka kaysanaytaan meel ka tagin qof walba inuu waxbarashada micnaheeda fahmo wuxuu meesha u yimaado fahmo laakiin saanu buugta inuu iska soo qaato ama iskuul baan dhigtaan magaciisa noqon waajibaadkeena saaran aad ilaahay la kaashataan iyo macallimiintiina iyo idinkuna dadaalkiina baha dugsiga sare Saciid Maxamed Cali ku xigeenkiisa Maxamuud Cali Shire marayaha shirkadda Gole Sheekh Cabdiraxmaan Ciise Fidin Nabadon Cabdiwabax iyo maayarka magaalada Xingalool Yuusuf Faarax Saciid ayaa iyana dhankooda munaasabada hadal ka jeediyay ardayda ururka ardayda dugsiga sare ee Xingalool ujeedaduna waxay ahayd inay soo bandhigaan waxqabadkooda waxa ay qabteen runtii aad bay u faahfaahiyeen waxa weeye qaar indhihiina ayaad ku arki karaysaan qaar way faahfaahiyeen waxa weeye way sheegeen sida fasalada oo kale hadaad gashaan qoraalada ama halkudhigida ku yaalo aad ugu xardeen oo aad u bandhigaan waxqabadkooda sanadka ruuxaantii waxyaalo weyn bay qabteen waa arka daaradda intaasoo 260 mitir ah ama ka badanba qarash fara badan bay noqon lahayd cid ka qayb qaatana ma jirin laakiin contribution-ki yar ah oo arday ku soo ururiyeen ay wax u qabteen inta ay ka badan hadaa u dhiiban lahayn day waa arki lahayn waxa u dhiibay wax yar baa $1 ama $2 wax hadaan ka badan u dhiiban lahayna deesaasanu aamin lahayn wax ka badan bayna ku qaban lahaayeen dawladda Maxamed Siyaad oo markay dadka dhiirigelinayso waxay ku oran jirtay dadka hees baa loo qaadi jiray waxay ahayd gudigeena talisa go'aanka ay keenaan hadaan garab kala la qaban oo la garaan garin raba dadaal inta ka sii badan inaad muujisaan xaqiiqatan waa muuqda tacabkiina waa muuqda laakiin waxa mada wali inaan ka joogino haddaad cadeyseen meeshii wax ka cadeyseen wali qayb baa dhiman inaad intaan ku sii dartaan hal ku dhagiya wanaagsan agdarada ku qortaan hay'ado hore way hadleen waxa qabadkoodii bay tilmaameen insha Allah waxaan rajaynaynaa gudiga dambe oo ka dambeeyana inuu noqdo mid iyaga ka sii ka talaabo dheer inuu degmada Xingalool sharafka iyo dadaalka aad muujiseen oo aanay qaban hadeeliba ku roodaan qabteen walow gudidiinu ay idinku hogaaminaysay idinkuna adeecayaasha ahaydeen aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa Maxamed Saalax TV ga caalamiga Somali Channel